cabdi yuusuf ismaaciil gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee gobolka Sool oo maanta saxaafadda kula hadlayay gudaha magaalada Laascaanood ayaa dhaliilo u soo jeediyay wasiirada biyaha iyo howlaha guud kuwaas oo uu tilmaamay in howlo dhanka horumarinta oo ay sheegeen inay ka qabanayaan gudaha magaalada Laascaanood ay yihiin kuwa ay ku fashilmeen. waxa uu dhaliilay wasiirka horumarinta biyaha Salebaan Cali Koore kaasoo uu sheegay in tiraba 4 jeer uu yimi bilihii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood uu sheegay in ay u hayaan biyagelinta magaalada Laascaanood lacag gaadhaysa 5 milyan taasoo uu su'aal geliyay. magaalada 25 sanadood u dambeeyay waxa imanayay wasaaradda biyaha waxa imanayay hay'ado wax alla waxay ka soo saareen oo biyo lama hayo. wasiirka biyaha bishii walba labada goor soo noqonaya maalintii u horeysay ee balaankan biyaha la galay wuxuu yiri 5 milyan baan u wadaa gobolka 5 milyan intay magaalada biyo geliso oo ceelal soo saarto oo riigag soo saarto ayay waxay sameyn kartaa degmooyinka biyaha ay gelin kartaa 5 milyan hatta Soomaaliland barkeed bay ku filan tahay algaabay biyaha u gudbin kartaa meel kale iska daayay 5 milyan kaasi de mahayadi bay dib ugu maqan yihiin mise meel dhaxay ku lumeen bal iyadana waa la isweydiinayaa gobolku waxaan ogahay inaan kulliba gobolka ayaan soo gelin waxaan leeyahay xukuumadda kulmiye de gobolada barisaanaha uga guurto awalba uu oran jiray musabixi ka dooni maayo anigu bari cod ka dooni maaye si wanaagsan ha uga laabtaan cidun ba degi doonte hadda aanay sidaa ahayn ummadda Hargeysa kale ha noqoto gobolada bari ha laga qabto wax qabadka ay leeyihiin oo hay'adaha doonariska saamigooda ha laga soo siiyo. waxaan maanta ka jeedinaynaa xafiiskayaga xisbiga wadani ee gobolka Sool waxa jira wasaaradda howlaha guud guriyay naga dumisay jidad baanu sameeynaynaa way tiri dad bay dhulkiisii qaadeen la baneeyay ilaa iyo haddana jawaab dib loo soo celiyay ma hayno. marka waxa iman doonta in dadku dhulkiisii laga baneeyay laami baa la idin ka dhigayaa inay dib u farfariistaan oo la isku wada dilo xabad ka dhacdo. marka in la isku dilayo oo dadka wixii iyagu ay dhibaan ma waxa kale iyagu istilaan bay u jeedaan xisbiga kulmiye oo hal la baneeyo Tombaland ha loo sameeyo dad baa guryihiisii la dumiyay banaan cidla la dhigay meeshii laga dumiyayna waxba lama salaamin lagama sameeyo jidna lagama sameeyo. waxaan leenahay xukuumadda kulmiye dalka ka talisa gobolada bari ama sida ha u dhaanto ama iskaga bax golayaasha ummaddu way u diyaar garowday axsaabtu way u diyaar garowday xisbiyo kale anigu garan maayo annaga wadani ahaan de waxaan u qaadanay in xukuumadii jirto wax waliba waqtigoodii iyo balaankoodii ku soconayaan inaan waxba jirin baa muuqata halkaana. marka dadka in runta loo sheegaa wanaagsan